خير الله يديسيو maantay waa mar kale iyo dardaarankii ahaa goboladu maanta waad ogtiin cudurkii waa faafaya goboladii buu aad u dhaxgalaya hadda maanta waxa lagu kala garan doonaa maamulada siday u kala diyaarsan yihiin sida ay dhimashadu ugu yaraato cidii diyaarsanayd maanta waxay noqon doontaa cid ku guuleysata inay ummadeeda iyo shacabkeeda ay badbaadiso cidii aan diyaarsanayna waxa soo bixi doonta maanta inay dadkooda ay ka warheen waxa rajaynayaa maadaama cudurku uu bilowday waqti hore in cid walba ay dadaal fiican sameysay cid walbana ay ku tala gashay meeshii karantiilka la geeylaha meeshii isolationka la geeylaha dadka sida loo kala triage loo kala saari lahaa dadka cudurrada kala qaba si looga fakari lahaa waliba dadka waayeelka daryeel gaala loo sii lahaa hadda dadaalkaas la iska rabaa maanta meeshaan hadda maanta muqdisho isbitaalkii martiini heer saru gaaray waxay noqotay in ay joogaan dhakhaatiir isdaba jooga daryeelku yahay continuous oo socdo 24 saac in isbitaalkii utilizationkiisu hadda lagu dadaalay in aad loo sii badsho ICU-diisa iyo wax qalabkii yaalay oo dhan la wada adeegsado aqoonta iyo khibradiina ay badatay saacadaan oo in la hadlayo waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo dhammaan gobolada waxaan ugu bishaareynaya in takhaatiirta joogta goboladaas ay group ka mid ay hadda duruus ka qaadanayaan professor Talyaaniga oo ah kuwii dhufayska koowaad ku jira Talyaaniga ogtiin waa lagu baaba'ay dadkii daryeelka badan sameynayay toosa wala qaybsanayaan asagoo jooga ama goboladiisa asagoo jooga ayay la qaybsanayaan arrinkaas marka waa arrin waxay noqonaysaa faa'iido ah oo dhakhaatiirtu waa tababaran ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed asna si online ayuu takhaatiirta badan ee gobolada joogta uu tababaray hadda dadkaas oo dhan kaadiriin tababaradana idin jooga laga faa'iideysto oo hal hawlgeliyo oo isbitaalaadka iyo goobaha loo cayimayo in cudurka lagu dawo inay noqoto isbitaalaadka inay noqoto waa isbitaalaadka meel laga siiyo si hadhow hantida meeshaas gasha iyo dadaalka gala ay ugu haraan gobolka ugu haraan haddii meel kale la geeyo hadhow arrinkaasi sida aan rabnay ma ahan waa naga khaldamaya waxaan rabnaa in cudurkaani waa yimid waa jira waa nagu dhex jira inaan laba arrimood uga faa'iideysano muhiim ah labada arrimood arrinta koowaad waxa weeye inaan nidaamkeena caafimaadka aan kor u qaadno oo maanta tababaradii iyo shaqaalihii iyo qalabkii gobol walba ama caasimadiisa ama degmooyinkiisa ay wax ka gaaraan weeye oo systemka caafimaadka kor u kaco qodobka labaad waxa weeye in laga helo waayo aragnimo kuwa hadda naga horeeya oo dawladdu hore u galay waayo aragnimo ka abuurteen annaguna waayo aragnimada inaan abuurano way si marka jiilalka waqtiyada soo socda waxaan kala haday dhacaan aan u diyaarsanahay oo aan mar alleeya markay dhacaanba aan hole systemka ka howlgelin karno haddii saasi dhicin hadda shir wax noqonaysa jugjugo meeshaada joog waa fatahaada soo laalaabanayso kale oo sanad walba soo dhacaysa ama daadka socda oo sanad walba dadkii shalay ugu haleelay maanta masalaha leelahay hadda arrinkaas waa inaan ka baxno waa inaanu aqliga adeegsano waa inaanu xoogeena midayno waa inaanu dhamaanteen gacanta isku qabsano sida cudurkaan aan hakin lahayn oo u joojin lahayn dad badanna aysan nooga dhiman ayaan rajaynaynaa marna waxa bilaaban doona baaritaano xoog laha bilaabmi doona dadku inay diyaar u noqdaan weeyo oo qolo walba ay meesheeda diyaarsato oo xataa qalabyada in kasoo naga maqan laga qalab fiican inay noo soo socdaan ayaa rajaynaa ma aha inaan rajo been idinku rajo gelinayo rajona ruuxna idinku rajo gelinayo marka martiin maanta bilownaba iyo hadda maanta ciriyo dhul kale yahay waxaan rajaynaynaa kuwa goboladuna inay saas oo kala noqdaan laakiin waa markii la isku duuban yahay waa markii si wadajir ah looga shaqeynayo in cudurka la xakameeyo waa markii wacyigelintu ay si fiican u hirgelayso waa markii dhalinyaradu ay qaataan mas'uuliyadooda ah inay hormuud ka noqdaan wacyigelinta inay dadka ayagu waaniyaan inay ayagu iswaaniyaan inay ayagu isbadbaadshaan dadka kalena badbaadshaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh